الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على نبي صلى الله عليه وسلم وقرنتي الله سبحانه وتعالى ما هذا إسكال مركل بعض وحنا هاد علنيا مدوق أرضي قرن كصوماليات ومانته سيسكا وقبسة أما سيس الخانة وقبسة ويمد مكتبة قرن كصوماليات وهذانا سيس الخانة وقبناي وقرنتي تذكر هاد علنيا marka labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka maktabada qaranka Soomaaliyeed oo nagu soo dhaweeyo hadana marka la nagala shaqeynaayo meeshan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada Xamarweyne oo asaga nagala qayb qaatay dhanka nadaafada anaga waxaan nahay midowgii ardayda qaranka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan sheego midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed maanta hawshan ay qabteen inaysan cidna u dirsan laakiin si isxilqaan ah ayaga isxilqaameen inay wax ku qabteen wali si voluntary ah oo lacag la'aan inay ku shaqeynayeen oo arday qaran Soomaaliyeed yihiin ay muujinayeen ardayda maanta meesha taagan ee wax qabanaysa waxay tusaale u tahay ardayda kale ee guryaha jooga ama xaafadaha jooga ama iskuuladooda jiro inay ardayda qaranka Soomaaliyeed ay hawl qaran qaban karaan wali si voluntary ah ugu shaqeyn karaan ayagoo isxilqaamay waxaan rabaa inaan sheego midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed inuu salahayn wax xuduud ah oo celinayso anaga ma ku jirno siyaasada isdiidan ee dalka ku jiro waxaan tagi doonaa markaan nahay midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed meel kasto ay Soomaali degto taas waxay ku cadeynaysaa anaga inaanu ku jirin siyaasada isdiidan ee dalka kaliya mowqifkeena inuu yahay in la mideeyo ardayda qaranka Soomaaliyeed mar haddii midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ay midoobaan waxay noqonaysaa inaan anaga gacan isqabsano ee aan kor u kacno sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan baaq ugu madaxweynaheena mudan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre oo ra'iisul wasaaraha dalka waxaan rabaa barnaamijka uu ku dhawaaqay mudan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaheena dalka uu ku dhawaaqay si isxilqaan oo ah maanta isxilqaanka uu ku dhawaaqaa bilaawna waxaan ka rabnaa marka aan ka codsanaynaa mudan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu nagu garab istaago maadaama maanta aan bilawnay dhammaan dadka ka qayb galay nadaafada aad ugu mahadcelinaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh